xaaladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ayaa weli kacsan waxaana maamulka dawlad deegaanka Soomaalida ay la kulmayaan cadaadis xoog leh oo kaga imaanaya dawladda federaalka Itoobiya. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya iyo maamulkiisa ayaa doonaya in isbeddel ay iyagu raali ka yihiin uu ka hirgalo magaalada Jigjiga iyo guud ahaan deegaanka Soomaalida ee Itoobiya. waxaa saacadii u dambeeyay soo baxayay in dawladda federaalka Itoobiya ay waxba kama jiraan ku tilmaantay tilaabadii golaha fulinta ee dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ay isniintii madaxweyne ugu doorteen Axmed Cabdi Maxamed. madaxweynihii hore ee maamulkaasi Cabdi Maxamuud Cumar oo shalay ay magaalada Jigjiga ka kaxaysteen ciidamada militariga Itoobiya isaga iyo xubno kaleba weli wax wara lagama hayo xaaladda uu ku sugan yahay. warar aan ka helnay ila lagu kalsoon yahay ayaa inoo xaqiijiyay in Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu ku amray afayeenka baarlamaanka iyo xubno kale oo uu kulan la qaatay in wixii hadda ka dambeeya ay ka amar qaadan doonaan Ahmed Shide oo ah wasiirka isgaarsiinta dawladda Itoobiya kana mid ah shakhsiyaadka aadka ugu dhow ra'iisul wasaaraha Itoobiya. waxa uu sidoo kale ka tirsan yahay golaha dhexe ee dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya isagoona ku matalaya dawladda federaalka. ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa kulan uu la qaatay afayeenka baarlamaanka iyo xubno kale oo xukuumadda deegaanka ahba waxa uu soo bandhigay inay fuliyaan ilaa 4 qodob oo ay ka mid ahaayeen in laga shaqeeyo sidii shacabka deegaanka Soomaalida loogu qancin lahaa qoondada dawladda dhexe ee Itoobiya ay kaga qorshaysay shidaalka laga qodayo deegaanka Soomaalida kaasi oo ah 5%. waxa uu sidoo kale u jeediyay in la kala diro ciidamada liyu booliska hoosna loo dhigo awoodooda. waxaa sidoo kale la sheegay in ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu ka codsaday xubnahaasi in dib looga laabto deegaanada ku dheerarsan xuduudda u dhaxaysa qowmiyadaha Soomaalida iyo Oromada oo qiyaastii 3,000 kiiloomitir ku dhow. ugu dambeyn waxaa ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu ka hor yimid degmooyin iyo maamullo ay dhowaan meel mariyeen baarlamaanka dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya.